Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama bilaabaysa barashada luqadda Jarmalka. Lection 16 casharkeena 16aad. Waxa aynu ku soo baranay casharkeenii 14aad sida loo conjugate gareeyo loona isticmaalo ficilada regelmäßiga. Fadlan haddii aanad weli casharkaasi daawanin dib ugu noqo oo daawo si uu casharkan uu kugu noqon karo mid fudud ama aad si fudud u fahantid. Haddaba wuxuu casharkeenani daba socdaa oo uu qaybtiisii labaad yahay casharkeenii 14aad. Waxaynan ku baran doonaa casharkan isagana sida loo conjugate gareeyo ficilada regelmäßiga. Ujeedada casharka haddaba kow waxaynu ku baran doonaa casharkan verb conjugation in presence qaabka loo conjugate gareeyo ficilada qaabka presenceska ama waqti xaadirkan waxa dhacaya oo kale. laba conjugationka ficilada regelmäßiga. 3 iyo tusaalayaal. Verb conjugation in presence. Haddaba waxaad soo xasuusataa in ficilka loo qaybin jiray laba oo kala ahaa verb stam iyo endung. Waxaynu ku soo baranay casharkeenii hore ee lasoo dhaafay in verb stamku uuna isbedelin ee keliyata endung ama wuxuu ku dhammaanayo keliyata ay isbedelaan. Haddaba ficilada regelmäßiga waxaa isbedelaya du iyo cs. Endung ama wuxuu ku dhammaanayaana waxay ku xidhan tahay waxani singular miyaa mise plural, wax keli ah miyaa mise wax jamac ah iyo qofka laga hadlayo. Haddaba verb conjugation in presence marka aad verb conjugate gareynaysid waxa ay ku xidhan tahay waxa aad ka hadlaysaa wax singular ah oo keli ah miyaa mise waa wax plural ah oo jamac ah mise waxa aad ka hadlaysaa waa erst person oo ah qofka koowaad mise zweite person oo ah qofka labaad mise dritte person oo ah qofka saddexaad. Haddaba qaabkan aynu hadda u qornay aad arkaysaan wuxuu la mid yahay sidii ficiladii hore ee regelmäßiga, laakiin ficiladan regelmäßigu waxay kaga duwan yihiin. Waxaa isbedelaya verb stamka wuxuuna isbedelayaa oo keliyata zweite person oo ah du iyo dritte person oo ah cs. Haddaba isbedelka ku dhacaya ee keliya waxaa isbedelaya xuruufta keliyata. Haddaba aynu eegno bal sida ay xuruuftu isku bedelayso. Aynu tusaale u soo qaadano ta koowaad oo ah expression hadal. Waxaa isbedelaya ida oo isku bedelaysa waxay markii hore ahayd expression waxayna noqotay imika du sprichst adigu waad hadlaysaa. Talabaad lesen oo ah akhrin. Waxaa isbedelaysaa ihda oo waxay isku bedelaysaa iyo tusaale ahaan waxay hadda isku bedeshay du liest adigu waad akhriyaysaa. Sida oo kale laufen waxay isku bedeshay du läufst. Faaqan iyaduna sidoo kale fisan iyaduna sidoo kale. Haddaba aynu ku bilowno ficilada ay ku jiraan ee isku bedelaya ficilka koowaad waa expression oo ah hadal. spreche anigu waan hadlayaa. Du sprichst adigu waad hadlaysaa. cs spricht isaga ama iyada aba waxaan uu hadlayaa. Wir sprechen waan hadlaynaa anagu. Ihr spricht idinku waad hadlaysaan. Sie
sprechen iyagu way hadlayaan. Sida ay hadda u qoran tahay, tusaale ahaan ich spreche marka aad leedahay anigu waan hadlayaa, waa present, waa wax hadda dhacaya, wax imika dhacaya weeyaan. Marka aad leedahay waan hadlay amba wax la soo dhaafay oo kale, waxaynu ku baran doonaa casharadeena soo socda. Ficilka ama feebka xiga waa nehmen, qaadasho. Ich nehme, anigu waan qaadanayaa. Du nimmst, adigu waad qaadanaysaa. Sie, es nimmt, isaga ama iyada ama waxan uu qaadanayaa. Wir nehmen, anagu ama inagu waynu qaadanaynaa. Ihr nimmt, idinku waad qaadanaysaan. Sie nehmen, iyagu way qaadanayaan. Ficil kale oo muhiimi waa kan essen. Ich esse, anigu waan cunayaa. Du isst, adigu waad cunaysaa. Sie, es isst, isaga ama iyadu wuu cunayaa. Wir essen, inagu waynu cunaynaa. Ihr esst, idinku waad cunaysaan. Sie essen, iyagu way cunayaan. Bal aynu eegna qaybtan kalena ficilada ay ku jirto ee isku bedelaya iyo e. Haddaba aynu eegno ficilkan ama feebkan lesen. Ich lese, anigu waan akhriyayaa. Du liest, adigu waad akhriyaysaa. Sie, es liest, isaga ama iyadu way akhriyayaan. Wir lesen, anagu waan akhriyaynaa. Ihr liest, idinku waad akhriyaysaan. Sie lesen, iyagu way akhriyayaan. Aynu eegno bal iyagana ficilada ay ku jiraan a, u ee isku bedelaya a umlaut leh iyo u. Haddaba aynu eegno ficilka ama feebkan laufen oo ah orod. Ich laufe, anigu waan ordayaa. Du läufst, adigu waad ordaysaa. Sie, es läuft, isaga ama iyada aba waxan uu ordayaa. Wir laufen, inagu waan ordaynaa. Ihr lauft, idinku waad ordaysaan. Sie laufen, iyagu way ordayaan. Bal aynu eegna iyagana ficilada ay a ku jirto ee isku bedelaya a umlaut leh. Aynu eegno tusaale ahaan ficilka ama feebka schlafen. Ich schlafe, anigu waan hurdaa. Du schläfst, adigu waad hurdaa. Sie, es schläft, isaga ama iyadu uu hurdaa. Wir schlafen, anagu waan hurdnaa. Ihr schlaft, idinku waad hurdaan. Sie schlafen, iyagu way hurdaan. Isagana aynu eegno ficilkan ay ku jirto ee isku bedelaya e iyo e. Aynu eegno bal ficilkan fisan u fiirso waxaa isbedelay oo kale ersta person oo ah ish. Halkii uu ku dhammaan jiray markan kumuu dhammaanin. Ich weiß, anigu waan ogahay. Du weißt, adigu waad og tahay. Sie, es weiß, isaga iyada waxan uu og yahay. Wir wissen, anagu waan ognahay. Ihr wisst, idinku waad ogtihiin. Sie wissen, iyagu way ogyihiin. Sida loo isticmaalayo si aad u fahantaan bal aynu eegno tusaalayaashan haddaba. Aynu eegno jumlada u horeysa. Ich spreche Somalisch und Deutsch.
anigu waxaan ku hadlaa Soomaali iyo Dutch. Ficil sameeyaha ama subjectigu waa ich oo ah aniga. Su'aalaha labaad wuxuuna odhanayaa ich spricht Deutsch und Somalisch. Isagu wuxuu ku hadlaa Soomaali iyo Dutch. Ficil sameeyaha ama subjectiguna waxa weeyaan oo ah isaga. Aynu eegno bal iyadana jumladan. Ich esse in der Woche 3-mal Fleisch. Anigu waxaan cunaa usbuucii 3 jeer hilib. Jumlada labaadna isst du jeden Tag Reis. Adigu ma cuntaa maalin kasta bariis. Ficil sameeyaha ama subjectigu wuxuu noqonayaa du oo ah adiga. Lesen oo ah akhrin. Aisha liest gern Bücher. Aisha waxay jeceshahay inay akhrido buugaagta. Ficil sameeyaha ama subjectigu waxa weeyaan Aisha oo ah sie iyada. Aynu eegna isagana tusaalahan. Laufen oo ah orod. Ich laufe gern am Wochenende. Waxaan anigu jecelahay in aan ordo usbuuc dhammaadka. Ficil sameeyuhu waxa weeyaan ama subjectigu ich oo ah aniga. Verbka ama ficilka ku jiraana waxa weeyaan laufen oo ah orod. Waxaan rajaynayaa inaad imika si fiican u kala barateen oo aad u kala saari kartaan muxuu yahay verb. Was ist ein Verb oo aynu ku soo baranay casharkeenii 13aad. 2 iyo ficilada regelmäßiga oo aynu ku soo baranay casharkeenii 14aad iyo ficilada unregelmäßiga oo aynu ku baranayno casharkeenan 16aad. Si aad u isticmaali kartid fadlan u baro siday yihiin oo u xafid ficilada regelmäßiga iyo unregelmäßiga si ay hadhow kuugu fududaan karto casharadeena soo socda. Danke, mahadsanid. Waad ku mahadsantihiin intaad i daawateen ee aad i dhegaysateen. Waan rajaynayaa inaad casharka dhammaantiin wax badan ka wada fahanteen. Haddii aad casharka ka heshay, fadlan la wadaag asxaabtaada iyaguna jecel in ay bartaan luqadda Jarmalka. Haddii aad wax su'aalaha haysaan ama ay jiraan wax aydan casharka ka fahmin, fadlan waa igu soo weydiin kartaan barta commentiga. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha ilaabin in aad subscribe garayso si aad ula socotid casharo kale oo fara badan.